السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمانتين وادين سلام يا سلامة إسلامك سلام كدب وحان ربع عاو إن هالكان إذن كوكسو بندقو قيب كميدة كورسوينكي أن كجرني marka insha Allah ta'ala waxaan idin tusay hadii la yiraahdo intaanan u galin taas waxaan rabaa dadka hadda ay ku cusub tahay oo videogan daawan doona insha Allah waxay u baahan tahay qaybtan inaad fahanto inaad ama la soo socotay casharadii hore ee koorsooyinka aan soo qaadanay hadday tahay kuwii one-on-one coachingkii ama kuwa kale haddii aadan la soconin insha Allah ta'ala wixii su'aalaha ka qabto oo noo soo sheegi kartaa qaybtan waxa weeye qofka markii uu setup gareeyay everything hadday tahay business license-kii website-kii Amazon account eBay account-kii online then uu u gudbay product-kii xataa uu rabay inuu dalbado markuu helay oo uu manufacturing-kii la xiriiray manufacturing-kii ay u soo jawaabeen ay isku afgarteen sample-kii loo soo diray marka qaybtan waa halkaas weeye waxaan idin tusayaa insha Allah sample product oo hadda anigii yimid ayaan idin tusi doonaa package-ka weli ma aanan furin insha Allah hortiinaan ku furayaa haddii ilaahay yiraahdo midda kale qiimaha alaabtan ay ku sameynayso manufacturing-ka qiimaha hadda retail-ka uu ka joogo labadana waan idin sheegi doonaa insha Allah marka intaan taa u galin marka hore ila daawada halkan waxaan ka soo qaaday boxkii boxkan u jeedaan mar dhow uu yimid weli ma aanan furin alaabtii aan dalbaday inay sax tahay inayna sax ahayn quality-gii sidii aan rabay ma garanayo laakiin waxaan idin hayaa manufacturing-ka ninka iskale waa nin islaama Cabdullaahi Saalix la yiraahdaa ragga qaar waan u sheegay magaciisa China mataqaanaa oo China degan yahay manufacturing-kana China ku taala entirely wuxuu sameeyaa product-ga Muslim Islamic related products uu sameeyaa maktabado badan oo muslimiina oo USA jooga alaabo ka qaataan adiga oo hadda company-gaada mataqaanaa hadda dhisaya ayaa alaabta rabta ka dalban kara catalog-giisa taa tagto waxa product-i uu gadaya fiirinaysaa bal adiga qiimaha ay joogaan uu ku soo sameeyaa fiiri iyo qiimaha USA ka joogaan and then tell me if you still want to drive taxi or Uber. I'm just joking with you guys that you can still drive whatever you drive, but inshallah, just an idea. Box kwa kana kawa maqaski. Bismillah, maxaa ka soo bixi doona? ka halka idig maasha Allah kan ugu horeeyay waa kana waa boxkaas kaasaan ku bilaabaynaa saddex product aan sugay insha Allah bal tan ugu horaan ka bilaabaya haddii la yiraahdo waxay tahay iyo sida aan u dalbaday inay ku timid boxka yarka halka idig gudihiisa maxaa ku jiro yaay taas waa manual instruction-ki weeye tan halkaa ii dhig videogi aan daba marayaa boxka ka empty weeye chargerkaas fiiladaas oo cable chargerka ah iyo audio auxiliary remote control iyo sameecaddan 114 quraanka ku duuban waa high speed mataqaanaa volume culimadoo dhan mataqaanaa ku jirto gurigaas u dhigaysaa malcaamada dhigaysaa masaajidka dhigaysaa mawlaca dhiganaysaa meesha rabta dhiganaysaa waxa ugu quruxda badan aan rabay inaan tuso waxa weeye halkaa waxa ku qoran live depots kamerada aan soo dhaweeyay live depots
sida aad qaarkiin taqaanaanba waa kambarigayga weeye. marka entirely productigan waxaa iska leh oo soo samaystay private labeling ah Life Depots, ku gaday Amazon, ku gaday eBay, ku gaday online retailada iyo mataqaanaa maaragtay meelaha kale ee looga baahan yahay na u geenaya. waa taas, waa sameecadaas, remotekeedana waa kaa, chargerkeedana waa kaa. waa productii koowaad wey, halkaa idhig. talabaad isoo qabo, bismillaah, isku dardarsami insha allah. talabaadna waa boxkaas oo waa kukaabo, waa kukaa saa idiin sheegay. product waa product islaami ah weeye. talabaad maxaa weeye, iyadana hortiina ku furo, indhihiina macalin ha idiin ahaado. waa kitaabka qur-aanka ah, maasha allah. kitaabadaas oo iyagana axaadiis ah, halkaa idhig. dhowr kitaab oo kale, halkaa idhig. charger iyo qalinkii akrinayay. qalinkan waxaa ku jirto up to 30 luuqadood. ma aha keliya inuu qur-aanka keliya intaa saarta u akrinayo, ma aha. kitaabadan axaadiista oo dhan buu akrinayaa, waad saaraysaa, wuu ku akrinayaa. luuqadahaas o dhan waa ku yimaadaa. and as matter of fact luuqadda af soomaaligana way ku jirtaa. marka waxaan rabaa inaan iga tuso isagana magaca ku qoran eega, waa Life Depots. Life Depots. so productigan waxaa iska leh Life Depots. magaca wakaas aan rabaa inaan tuso insha allah. headphonekana ku yimaada iyo chargerkaas. waa productii labaad weeye. marka kan qiimihiisa hadda Amazon maraan fiiriyey waxaan ku arkay $75 to $80. retailada waxaa lagu gadaa $99 ilaa $100 qalinka markuu luuqadoo dhan wato. kan everything haddaa gasho websiteka Cabdullaahi Saalix warshadiisa, xabadda waxay kugu imaanaysaa including shipping between $12 to $14 markay ugu qaalisan tahay, depending addresska u ship garanayso USA. aragtaa marka markay $100 retailka gadayaan, adigana $12 ilaa $14 ay kugu imaanayso, how much profit aa ka sameynaysaa and how many pieces u baahanta inaad gado si aad profit uga sameyso. halkaa ii dhig. waa productiga labaad. productiga saddexaad, boxka waa eber. tii saddexaad waa tanaa, waa taasaa. I hope inaan kaamerada aan ku aadinayo wax walbo. haddaba maxaa ku jira meeshaan aan bal eegno insha allah. sorry videoga inuu idinku dheeraaday, waa ka xumahay. u kaadi, iyadana aan fure. bismillaah, calaa barakatillah. suufka xagga idhig. qur-aankaas iyadana waa nalkaas, waa sameecad iyo nal. waxaa ka ifaya intaasoo kalar oo nala. guluubka nalka unbaa saa u gelinaysaa. markaa saa u geliso qolka carruurta unbaad ku xiraysaa. markaa ku xirto waxay leedahay remote control bay leedahay. qolkaad adoo jiifaad u daaraysaa, halkaasay qur-aanka aad uga daari. qur-aankii, aadaankii, wax walbo ayaa ku yimaada. meesha kale kaasna uu ku yimaadaayo waa kii lagu charge gareynayay on iyo off. marka waad charge gareeni, markaad charge gareyso guluubka baad ku xiraysaa, ma damayo insha allah. kana waa adapter waddankaa joogtay ku xiran tahay, always waa lagu soo daraa. marka kana aan idinka tuso. okay, haddii ay kaamerada soo qabanayso Life Depots, hadda haddaad tagto www.lifedepots.com, waa company online-ka ah. alaabta online-ka aan ku gado e-commerce website-keyga weeye. marka saddexdaa product aan raba inaan idiin soo bandhigo. tan haddeer toole weli Amazon kumaan arag, so please don't copy me. insha allah waxaan kaloo ku arkay laakiin maktabado kale oo muslimiin ay leeyihiin oo lagu gadayo oo hadda USA ka bilaabatay ayaan ku arkay. $120 ayay ku registeraysan tahay in lagu gadayo. imagine everything
it cost me xabadii depending unitka aad dalbanaysa iyo waxaasay ku xiran tahay laakiin it cost me about $15 each. This one $15. $15 $3 waxaan u qiimay shippingka $12 $120 ku gadaysaa. Imagine that. So waka boxka insha Allah intaasaan idinku soo gabagabeynayaa. Productyada hadda aan tusay waxaa ku yimaaday waxay ku imaanayaan magaca company-gaada. So koorsooyinka haddaa qaadanaysay you already establish business license-kii iyo mataqaanaa requirement-tigii iyo waxyaalihii shuruudihii sharciga ee mataqaanaa ganacsiyada qofka ganacsatada ah looga baahnaa import iyo export. Then markaa manufacturing la xiriirto productiga magacaadii lagugu soo sameeyo then you have a market. Platformyada aad ku gadaysa haysataa waxaa weeye adigu dib ha isu celin weeye suuqa waa kula shaqeynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. khayr baan idin rajeynayaa videoga hadda idinku dheereeyey karaan lahada.